قلبيت كموضو فوت دعب لمودو فرحة لو جلي عاد في ردي دا السيدنقو هبلها وفي الروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذلكين مالكستو أجوكتان يسيكستو أدنو داوانيسان كسو دوادا بيجك يوتيوبكا miskimaanka official oo sheekooyin kala duwan aad kala socotaan aatanna waxaad kusoo dhawaataan qaybta koowaad ee sheekadii way isirtay ileen waa la qabaa. daawadaasha sharafta badan ee la socda sheekooyinkeenna waxaynu idiin soo bandhigi doonaa sheekadan la magac baxday way isirtay ileen waa la qabaa oo ah runtii qiso dhab ah oo ka dhacday magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. waana qiso aan isleenahay way xiiseen doonaan daawadaasha ku xiran page-ka YouTube-ka ee miskimaanka official. ayna markaasi sheekada ku bilaabatay sida tan: waa casarle qorraxdu baalka ayay sii dhiganaysaa, waxaana ka soo baxay shaqadii aan aroornimadii hore galay. waxa aan dareemay daal xoogan, saanta ayaan hoos ka boobay. badi dadku waxay albaabada u laabayeen goobahooda shaqada. cabaar kolkii aan sii socday oo aan ku dhowahay hooyigii aan deganaa ayaa waxaa si kadis ah iiga soo horbaxay ruux haween ah oo xiran xijaab iyo indhashareer. assalaamu calaykum ayay markiiba igu salaantay. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan uga qaaday. iska waran saxardiid ayay markiiba iisii raacisay. anna waxaan u daba dhigay waan fiicnahay walaal, ee sidee tahay? aad baa loo fiican yahay. hadda waxa aan filayaa waad i garan la'dahay. intaa ay tiri ayay qosolna ii raacisay. haa, kuma garanayo walaal. intaa iri ayaan u sii raaciyey. waa tuma aniga maadan i garanaynin. waa gabadhii waris ahayd ee shalay galab lacagta $1,000 ah aad siinaysay ee xawaaladda mar kastana lacagaha kaa qaadata. intaa markay i tiri ayaan fahmay. ii waran waris, see tahay walaal? ma la fiican yahay ayaan ku idhi. cabaar ayaan halkii taagnayn oo istaag ku sheekaysanaynay. meel sheed ah ay iga tustay guri ay degan tahay. telefoonkoodina way ii qortay. cabaar kadib haddii aan sheekaysanay ayaan ismacsalaamaynay. markii wax yar aan sii dhaqaaqay ayay misna ii yeertay. saxardiidow walaal, caawa mis heli karnaa ayay ugu tiri. anna waxaan ku dhahay abbaay, caawa waan daalanahay, shaqo badan ayaa ii taalla, laakiin ka waran habeen dambe waa sidee haddii aad iiga dhigtid? intii ay qosashay ayay tiri, waa tahay walaal macaan, dhib ma lahan, waan ku soo wacayaa. habeenkii oo dhan waxaa maskaxdayda ka go'i weyday hadalladii gabadhu ay lahayd oo ahaa waan kuu baahanahay ee walaal goorma ayaynu kulannaa. runtii waxay igu noqdeen hadalladaasi kuwo ka dig waayey laabtayda. maxaa yeelay kama aanan filayn gabadha hadalkaasi iyo weliba sida kadiska ah ee arrimahan ay ii horkeenaysay. waris waxa aan ku bartay halka aan ka shaqayno ee xawaaladda ah. intii muddo ahna waxa ay ka mid ahayd dadka macaamiisha ee xawaaladda, waxayna ka mid ahayd dadka sida joogtada lacagaha loogu soo diro. waa gabar kaftan badan oo bashaash ah. weligeedna ma dhicin in ay weydiiso halka aan deganahay iyo weliba telefoonkayga, laakiin wax walba waa ay dhici karaan. waxaa niyadda ku dejiyey la arki doonee waxa ay ku saabsan tahay sheekada khaaska ah ay ku ballamisay. 8 fiidnimo iyo qadar daqiiqada ah waxaa soo istaagay meel aan sidaas uga fogeyn waddada loo yaqaano 12 Street oo ku taalla xaafadda Soomaalidu ay ku badan tahay Slee ee magaalada Nairobi. halkaasi oo ay ballantu ahayd in aynu istaagno. cabaar haddii aan taagnaa halkii waxa aan meel dhinacayga ah iiga yeeray nin taxi driver amaba taksiile madow ku jahaba. haddaba la soco qaybta labaad ee sheekadan haddii alla idmo. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa sheekadii gaabneyd ee la magac baxday way isirtay ileen waa la qabaa qaybteedu koobaad. fadlan haddaad ku cusubtahay page-ka YouTube-ka ee miskimaan official subscribe saar si aad halkan ugula socotid qaybta labaad. rukumo gambaleelkana furo si aad ula socotid sheekooyinka iyo qisooyinka halkan aynu soo gelin doono. waan galbeed ka muuqdo fooda daab la moodo farxad lagu jaleecay. firadayda sidan qabo hablaha ugu filro